muxuu Carlo Ancelotti ka yiri guushii diriqiga ahayd ay Real Madrid ka gaartay Rayo Vallecano? Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa qirtay in taageerayaashu aysan ku qanacsaneen qaab ciyaareedkii kooxdiisa qaybtii labaad ee kulankii Rayo Vallecano, inkastoo ay guuleysteen. Isagoo la hadlayay saxaafadda kadib ciyaarta, Ancelotti wuxuu yiri waxaan doonaynay inaan helno 3 dhibcood. Waxaan fahansanahay in taageerayaashu aysan jeclaysan qaybtii labaad ee ciyaarta. Ancelotti wuxuu sidoo kale tilmaamay in kooxo kale oo waaweyn oo Champions League ciyaaray ay la kulmeen dhibaatooyin isla maalmahan. Wuxuu xusay in Bayern Munich iyo Bayer Leverkusen ay guuldarooyin la kulmeen halka Inter Milan iyo Liverpool ay dhibaatooyin soo food saartay. Wuxuu yiri ma sahlana in si joogto ah loogu ciyaaro heerka sare. Intii lagu jiray shirkiisa jaraa'id, Ancelotti wuxuu difaacay go'aankiisa ahaa in kooxdu diiradda saarto difaaca markii ay hoggaanka ku hayeen 2-1 ilaa daqiiqadii 75aad. Inkastoo ay jireen dhaleeceyn kaga timid taageerayaasha Bernabeu, wuxuu sheegay in xaaladahaas ay muhiim tahay in la difaaco natiijada wanaagsan. Tababaruhu wuxuu sidoo kale ammaanay ciyaartooyda sida Kylian Mbappe iyo Aurelien Tchouameni, isagoo sheegay in Tchouameni uu sameeyay horumar weyn inkastoo ay jireen dhaleeceyn. Ancelotti wuxuu ku adkaystay in qaab ciyaareedkii qaybtii hore ee ciyaarta ay siinayso kalsooni ku aadan kulamada soo socda. Ugu dambeyntii, Ancelotti wuxuu ka hadlay soo kabashada ciyaartooyda muhiimka ah sida Luka Modric, Thibaut Courtois iyo Antonio Rudiger, isagoo sheegay in soo laabashadooda ay muhiim u tahay kooxda. Wuxuu sidoo kale ammaanay Jude Bellingham oo bandhig fiican sameeyay kulankii ugu dambeeyay.